بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام marka hore waxaan rabaa inaan salaamo dhammaan kasoo qaybgalka madashan iyo hay'adda qabatay iyo dadka micnaha leh ee kasoo qaybgala. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacda salaam waxaan rabaa inaan horta tacsi dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo dadkii shacabka ah oo dhibaatada soo gaartay inaan iraahdo ilaahay how naxariisto inta ku dhimatay, inta dhaawacna ilaahay caafiyo. intaa kadib waxaan rabaa dalkan Soomaaliya inta badan dad akhyaara soo sheegay, laakiin waxaan rabaa inaan taabto dhowr qodob oo qodobka uu sheegay howlgalka hadda socda iyo qaabka uu socdo iyo qaabka uu guuleysan karo. waxaan isleeyahay taas waxaan leeyahay howlgalkan ama fursadda hadda taagan waxaan dhihi karaa waa tii ugu horeysay aniga aan arko ee dalkan soo marta. haddii aan laga faa'iidaysanna waxay noqon doontaa mid laga dib dambo aan dalkan u soo mari doonin. waxaan rabaa marka howlgalku ama kacdoonku xaguu ka bilowday. waxa uu ka bilowday isbeddelka dalkan ka dhacay. waad ogtihiin dowlad waliba ee dalkan ka dhalatay inta la soo sheegay dowlad waliba waxbay la xarbinaysay. laba dowladood oo isku si u xarbinaya sooma marin ku dhowaad ilaa waxaan u maleynayaa madaxweyne xasan sheekh ayaa dowladdii afraad oo aan la shaqeeyo waayo asiga markii labaad yahay. dowlad waliba marxalad ama duruufo iyada u gaara oo ku xeeranaa jirtay. tan hadda waxaan isleeyahay kooxahan argixisada ah dadku faham badan kama haystaan, laakiin way ka baqaan keliya. haddii la fahamsan yahay argixisadaanu maxay tahay, tiradoodu maxay yihiin, xaggay ku sugan yihiin, hadda maxay ka fikirayaan, waxaan isleeyahay laba qofood oo iska warsata xataa lama arkeen. laakiin sidii ay ku aasaasmeen iyo dadkii ay dili jireen iyo dilkii oo hadda baad isku beddelay ayay dadku waxay ka qabaan sas badan oo sas horena ah oo cabsi laga qabo awgeed ayay nimankaanu ku jiraan. mayna tayo ay leeyihiin ama wax ay iyagu maantay ay dadka u dhibi karaan haba yaraatee ma jirto. laakiin dadku haddii aysan fahansanayn waxaan lala xarbinayo waxa ay yihiin oo loo arko in dowlad iyo shabaab ay dirisan yihiin, waxaan isleeyahay shabaabkuna wuxuu beegsanayo ama uu halaajinayo ay yihiin dadka, dowladda iyo dadkuna aysan isla socon. dhibaatada hadda jirto taas waaye. waxaan isleeyahay marka fursadda hadda taagan waxaa waaye taasaa aan rajaynayaa inaan hadda kacdoonkan looga baxo oo dadku soo jeestaan oo ay gartaan argagixisadu waxay beegsanayaan inaysan ahayn dowlad, ay tahay jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliyeed oo dhan. waxay la dirisan yihiin qofkii wax bartay, waxay la dirisan yihiin qofkii wax haysta oo ilaahay wax siiyey, waxay la dirisan yihiin qof kasta oo ama sharaf leh oo sumcad leh. cabsida laga qaban waxay ku salaysan tahay markoodii hore oo aasaaskoodii waxay dili jireen qof kastoo isleeyihiin qofkan waxbuu taraa, qofkan hadda wax baranaya, qofkan waxbuu bartay. dadkii sidaasay u beegsan jireen. beegsigaas cabsida laga qaaday ayaa weli dadka ku dambayso, maahina tayo iyo tiro ay nimankaanu leeyihiin haba yaraatee ma jirto. intaa kadib waxaan rabaa inaan dadku dowladda waxaan soo sheegay muddo fara badan dowlad waliba waxbay la xarbinaysay. dowladdan hadda jirto waxaa loo baahan yahay inay dadka dhibaatada ugu badan dalkan waxay soo gaaraysa waxay ahayd shacabka iyo ciidamada qalabka sidoo dhan. inta badan way yareeday ama siyaasi ha noqoto ama nin xil haya ha noqoto in dhibaato soo gaarto way dhacday, laakiin ma badnayn. 10% ma dhammo in dad siyaasiya ama dad xil haya ama dad dowlada in dhibaato soo gaarto. dhibaatadu inta badan dadka ay soo gaaraysay waa ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed. labadaasaana isku qasban. waxa maanta dagaalamayo oo cadowga beegsanayna waa labadoodii horto. haddii marka labadaasu ay is aaminaan oo ay iskarab galaan waxaan isleeyahay way sahlan tahay in laga taagroonaado lagana saarayo deegaanada farakutiriska ay haystaan kooxaha argixisada ah.
waxaan rabaa hadda hiiraan kacdoonka dhabta ah ama dagaalka dhabta hadda meesha uu ka socdo waa gobolka hiiraan magaalada beledweyne iyo deegaanada ku xeeran waad la socotaan dadkii deegaanka oo kacay iyo ciidamadii qalabka sida iyo dowladdii federaalka oo dowlad cusuba madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay dagaal ciidamadana ay diyaarsan yihiin oo meesha dagaalku ka socdana ay u diyaarsan yihiin meel weliba oo ama shacabku ka kaco iyadana dowladdu ay si weliba ay u qorshaysan tahay oo ay darhada u dambeysay uu ka hadlayay madaxweynaha jamhuuriyaddu aaskii ama janaasadii jenaraal farxaan allah u naxariistee waxaan qabaa marka fursadahaas inay tahay fursad inay see tahay looga faa'iidaysto inay tahay in la iska daayo dhaliisha iyo isqaqabsiga iyo waxyaabaha raqiista ah ee loo jeesto in dalkan iyo dadkan mustaqbalkooda in laga fikiro mustaqbalka dadka muxuu yahay marka mustaqbalka dadka waxaa waayo inaad horto shaqaysato ama wax barato ama horumar gaarto waxaa ka horraysa horta inaad noolaato waxaa lala dirirsan yahay waa noloshaada ninka noloshaada la dirirsan markaad adiguna ka baqdo adiguna uu ku raadinayo waad dareemaysaan dhibaatada ay leedahay waxaan is leeyahay marka xog yar nabadoonkii gobolka hiiraan allah u naxariisto subixii uu dagaalka ku shahiiday habeenkii ayay la soo xiriireen kooxaha argixisada ah waxay kala hadlayeen waxay ahaaday inuu dagaalkaana ka joojiyo dhaqaalana ay siinayaan haddii uu aqbalo mausan aqbalin wuxuu qaatay oo u sheegay wax walbay u sheegayaan inuu uga qiimo badan yahay inay ka qiimo badan tahay qoraga iyo booshka iyo shacabka uu horkacayo taasaan ku dhimanaa taasaana ku adagayo weli iyadiinu ku dhintay oo ku shahiiday haddii uu qaado lahaa uu aqbali lahaana uu dhimo lahaa oo ma noolaadeen haddii uu lacagu dadkana lagu dhibaateeyo isaguna uu horkaco hadduu qaado lahaa macnaha lacagtaasu ma sababteen nabadoonkii inuu noolaado uu dhimo lahaa asoo dadkiisii iyo dalkiisii deegaanadiisi iyo dadka nabadoonka asoo iibsaday ayuu dhimo lahaa waxaan is leeyahay marka dadka waa ka baqaynaa xoolo u bixinayo dadka qof meeluu joogo aysan helin taleefona laga soo waca goolis oo buuraha galgala lagula jiro lacagaa lagu weydiinaa lacagaa lagu bixinaa qofkaas meeluu joogo maba yaqaanaanba qof uu yahay ma yaqaanaan laga yaabay inuu guriga kula jiro uusan kooxaha argixisada uusan ahaynba waxaan u baahannaha horta dadku waxay ka baqayaan in ilaahay subxaana wa tacaala oo keliya laga baqo oo la iska daayo waxyaabaha raqiista ah iyo waxaan la aqoonin iyo waxaan la fahansanayn ee laga shaqaynayo horta waxaan rabaa inaan ku dheeraadana ma rabo kooxahan argagixisada ah waxa keliya ee looga adkaa karo awal waxay ahaaday dowladda iyo shabaabkaa la isku daayey dadka shacabkaa waxay yidhaheen shabaab wuxuu la dirsan yahay dowladda ganacsatadii waxay tidhi sidaan u badbaadno waa inaan xoolaheenna bixinno nin waxaan ogahay ganacsado ah maalintii laga qaaday lacag adiga fowqal caqli laga qaaday oo baad looga qaaday 2 maalin 3 maalin kadib gabadhtiisa oo jaamacad ka timid qaraxay sameeyeen ayay ku dhimatay waxaan rabaa marka ninkaas cabsiyo qabo lacagtaas u bixiyay ma ku badbaada marka waxaad horta badbaadsanayso ma dadkaaga iyo dhaqaalahaaga iyo horumarkaaga mase naftan adiga aad leedahay bis waay hadday naftaada tahay oo is leedahay naftaada badbaadso tigidkoosa waddankaa nooga tag laakiin haddaad rabto inaad adlisti hadda dhaqaalaha bixinayso haddii qoyskaaga ku nabadgelayo oo dhaqaalaha ku nabadgelayso oo naftaada ku nabadgelayso laakiin dhaqaalahan maya ma ku nabadgelayso waxaan rabnaa marka in nimankan lala diriro way sahlan tahay waana lala soo diriray dadka 24 saac u taagan dagaalka nimankan mid muuqda iyo midaan muuqan waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo dadka shacabka ee kacay mar waliba qarax kasta oo dhaco waxaa ku dhinto sidaan horena uga soo sheegay askari iyo shacabaa ku dhinta miina hadday kacdo waxay la kacdaa baabuur iska caadi oo socda iyo kii dowladda ma kala taqaano waxaan rabnaa marka dadka noocaas u dhaqmaya dadkii shacabkaa oo soo jeestay oo hadda taagan bannaanka ay ugu horreeyaan reer hiiraan
waxaan qabaa dad kacay oo deegaan shabaab waxaan ognahay deegaanada hadda xurta ah ama maamulada magaalo madaxyadooda dowlad Soomaaliyeed iyo duushay shabaab meel ka qabsatay ee hadda maamusha horta ma jirto meel waliba ay ugu horeyso maamulka Jubbaland halka gobol dhamaantiis xura ee todobada degmo ay shabaab uusan haysan waa gobolka Gedo hal degmo ee dawladdu qabatay dawladdu way maamushaa laakiin waxaa ka kiciyay dadkii deegaanka ayaa nimankaas la diriray iyagoo adeegsanaya shacabkooda iyagoo adeegsanaya hubkooda ayay iska kiciyeen maanta reer Gedo dib lagu qabo ma jira waa maya tabarta ayagaaba sii dhiban hadda iyagoo halkan ka soo maray cadawgu iska kiciyay dawladnimadana ogol maamulkii Jubbaland ogol ay hadda dhibihiin oo aad ogtihiin doorashadii hadda dhacday roolkii ay uga jireen dadka gobolka Gedo waxaan rabnaa marka dadkaasu dadka ay isxureeyay waayo waxaan rajaynayaa inaysan ujeedadan u soo qaato waxay tahay dad iyaga kacay shabaab iska xureeyay wax hadda cusub maaha ujeedadaas asu leeyana waxay tahay dada waxa laga akhriyay waxa la siyaasadeeyay waa la qabiilay waa la qoleeyay waxa la yiri dawladdu dad gaar ah hubeynaysaa dawladdu cid hubeynaysaa ma jirto macawislay ama dadka deegaanka qoryahooda ayaga iskale geeloodii kala baxeen risaasta haddayba dawladdu waxay ku dagaalamaysiisay risaasta ay ku dagaalamaysiisay dawladdu hadda siisay risaastana arigay kala bixi jireen qoryahana geelay kala baxeen waxayna kula dirnaa argaxiso iyo shabaab dadka saasa marka ma dhiirigelinay mudan yihiin mase in la yiraahdo qabiila la hubeynaa ama deegaan gaar ah la hubaanay mudan yihiin maya ma mudna waxaan isleeyahay herkab iyo kansar way kala duwan yihiin waxa la leeyahay waa laga baqa ama saasay noqonayaan waa hergab waay waxa la rabaa in lala diriro ama la cirib tirana waa kansar horto waxaan u baahanahay marka annagoo isla jirno isla socono kansarkana wada jarno nimankaanu waa jarid bis daawo male war male wax ay leeyihiin qabiil male walaal male waarid male waa jarid waa kansar waxaan qabaa markaan saas leeyana waxa waayo nimankan ciday u roon yihiin ma jirto deegaanada nagu xeeran dalalka nagu xeeran oo Afrikaanka ah oo Kenya kugu soo heshay Ethiopia ku xigta qof jooga magaca al-shabaab ma sheegi kariyo shabaab uu ka baqaa inuu yiraahdo wuxuu ka baqaanay maxaa waaye yaa lagu soo raacin magacaas oo shabaab nin ilaahay wax siiyay oo xoog leh oo xoolo leh oo magac leh oo xamar joogan wuxuu ku leeyahay waa ka baqa dhaqalan siinaa wuu baxa Ethiopia taga ama Kenya taga telefonka uu hayo waa ilaalina wuxuu leeyahay lambar caadi wixii ma wadi saban dadka ka waca waxaan diidaa in ay sheeg magaca shabaab in ama qof ii sheeg ama aniga iga fakado in la igu xiro horta qofkii shabaab xataa ay ka fakatay in la xiraan qabaanay qofkii u shaqeeyay in la dilo waay waxaan qabaa marka sidaas kaliya loogama adkaa karo anigu waxaan qabaa dagaalka uu iclaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda oo sheegay nimankaas in cir iyo dhul iyo aragti iyo maqal in laga dilo dawladdu ay siyaasaddaas qaadato shacabkuna u kacay anigu waxaan qabaa in lagu daro madaxweynuhu inuu fidiyo cafis dadkan dhalinyaro la qalday waarto iyo kuwa la xoogay waxaan rabnaa marka 5 sano ee ugu dambaysa hadda ama 6 sano aan dhaho laguma biirin kooxaha argagixisada horto waxaa la taas ina qaataan 5 sano ama 6 sano ka hor dadka kamid ahayna waa mid dhintay oo ama dawladdu dishay ama duqaymo lagu dilay ama ayagu dileen iyo mid ayaga xabsi ugu jiro iyo mid ka soo baxay ee dawladda u shaqeeya fikirkii iyo wixii ayagu ay ku jiraan la diriraayo la dirirsan dadka magacaha sheeganayo ee amiirhaan hale ee iyaga ka tirsanne maalinba waxbay isku ekaysiyaan mar xoole isku ekaysiyaan mar geedahay isku ekaysiyaan mar godaday galaan kobaha gacmahay ku wataan waxayna ku leeyihiin waxaan nahay madax iyo mas'uuliyiin xagee ka yihiin madax iyo mas'uuliyiin waa beentood waxaan rabaa nin kule iyo cagaar la soo guro ii sheeg madaxa laga saarayo
كوباهنا جماعة قوة حتى كوبيسة قف كأمير كرين أو يحوك له وحنا أمير هلا يجبقوا وحرب هرتو مشكلته شباب معها وعدتك وأيو شبابك وأن أجنهي تكاد أفرنا مجرته أربور أفرنا مجرته مجاله هرمسان الجوجان وأمي قرح كوسمي كران أمي وحكي كيني كران أمي وحكي بيري كران أمي وحكي لسودي كران مجرته شبابك جعمال لو يهي إندال لو يهي إدمال لو يهي ما لو جو سكرك ليه هداربته أنا واحد يجري ما قرع صدقه نما يهو الليست والب بقاردين يحير تاسك بحا waxaan aad siinaysaan naga joojiye nimankaas in dhaqaalaha ay ku baxo laga joojiyo way sahlan tahay waxay ku sahlan tahay waa laba qodob oo kaliya waxa waaye horta midka siinayo waxay nimanka lagu taageeraa dhaqaalaha lagu siiyaa laba qodob oo kaliya waa aaminaan la aaminsan yahay iyo cabsi laga qabo bis dawladdu waxa la rabaa inay cabsida la dirto horta cabsida waxa lagu diri karaa meesha nimankaas meel ay joogaan oo loo dacwatay karo horta inay sajirin haddii nimankan meel loogu tago bay sajirin dadkaanu haddaan la iska dhicin iyaga naftigooda dadka dhaqaalaha bixinayo waa bixinayaan oo nin goolis joogo hadda aysan aqoonin buuraha galgala ku jiro ayaa shirkado waaweyn wuxuu ka furtay bakaaraha ninka ka shaqaynaya shirkadahaas ninkaas ma yaqaano wax is yaqaano oo ilaahay abuuray ma jiraan waxa dhan waxa waaye waa riyo iyo been anu waxaan qabaa in nimankan kacdoonkan hadda looga faa'iideysto deegaanada farakutiriska ee yar ay haystaan horta in laga faramaroojiyo lagana raacdeeyo labo in waxay sheeganayeen diin maanta horta diin ma sheegtaan maanta nimankan waxay ku dirayaan way caddahay waa maafiyo waa baad waa xoolaha isii haddaad isiima ku dilaa waa dhaqaale isii haddaad isiima ku dilaa ninka dhaqaalaha siinayo iyo kan dhaqaalaha la siinayo iyo midka dawladda u shaqeeya ama dekada jooga ama airportka jooga ama suuqyada joogo ee xogta siinaya waxba isma dhaaman horto waxyaabahaas aan soo ogaano waxaa ka mid a annaga waxaad ogtihiin 9 bilood ayaa waxaa nagu qaadatay dadku waxay arkayaan dhaqaalo nin jilib joogo ama kuunya barrow joogo ama bu'aalo joogo ayaa container wuxuu ka dalba jiray dekada muqdisho container inta ugu soo degi jiray container kaas la qaadi jiray waxa la geey jiray jilib waa container ugu shabaab leeyahay oo dekada muqdisho ka soo degay waxa laga yaabaa container kaas waxa ku jira qof taqaan isa jirin gaadidii la soo degi jireen qaraxyo imaadooyin qaraxyo la soo degi jireen wax kasta ninka ganacsadaha oo bakaaro joogo waxa uu dekada ka dalbado oo kan jilib joogay kan bu'aalo joogo oo ayaguna ka dalba jireen horta airportka iyo sheeg iyo dekada muqdisho 9 bilood ay naga qaadatay in kooxaha argixisada ah wax dekad ka soo degay ama airport ka soo degay inaysan gaarin waa tii sababtay 3 sano ee la soo dhaafay inay sameeyaan 4 baabuur oo qarax bis waa 3 sano dhaqaalina waa haystaan waxaa la diray maadooyinkii waxaa la diray ii sheegeen wax waliba waxaan ay ku farsameynayeen kana soo dejinayeen dekada weyn ee muqdisho iyo garoonka aadan cadde phase 2 waxay ahayd in la diro dhaqaalaha midka bixinayo iyo midka xogta bixinayo nimankaanu markabna ma saaro dekadana ma fadhiyaan ma joogaan waa loo joogaa dadka dawladda u shaqeeya u jooga dadka shacabka ah u jooga kuwa xamaaleyda ah u jooga waxa loo baahan yahay waxa waayo in sida aan sheegay ee wadamada deriska ay isticmaalaan magacaas al-shabaab oo argixisada qofku ka soo yeero inuu asagu isku baqan waayo in dadkiisu u baqan waayo waxaan qabaa marka nimankan meelaha ama qaabka ay u dhisan yihiin iyaga naftigooda waxay u dhisan yihiin qaab beeleed 4.5 4.5 markay ku kala macno badan yihiin waa fikirka xaq jirka ayagu dadka in la laayo ayaa qola qabto in dad gaar la dilo deegaan gaaran la baabi'iyo iyo qola qabto inaan hadda loo keedmaayo deegaanadooda dadkooda la taaban ay horta isugu jiraan horta
waxyaabaha aan u leeyahay waa marka dadka ka imaanaya waa in la dhiirigeliyaa waa in cafis loo fidiyaa hadda qofkii dhab ka taa waay waxaan qabaa annagu waxaan maanta ah xildhibaan shalay hoos waa u dhiga karay xogay aheeday aniga kaligaa ku duulaaya laakiin maanta waxaan ugu duulaa si babliga waxaan qabaa nimankan istarajarka iyo qaabka ay u dhisan yihiin waxay u dhisan yihiin dad la rabo deegaankooda iyo dadkooda inay nabad galaan laga taaban iyo dadkooda iyo deegaanadooda in la baabi'iyo raba oon waxba laga reebin dadka raba deegaanadooda dadkooda in la baabi'iyo waxaan la yaabanaa meesha ay ku noolaan rabaan iyo cidda ay la noolaan rabaan waxaan rabaa inaan ka tilmaamo waxaa jira in la yidhaahdo abubakar cali aadan inaad taqaaneen oo malena wuxuu sheegtaa ku-xigeenka amiirka al-shabaab abubakar cali aadan nin la yidhaha jira maanta wuxuu la diriirsan yahay ilmihiisa iyo xoolihiisa waxa xoolaha quminaya xoolaha la duuduubaye nimanka quminaya ku jiraa amiir ku-xigeen una sheegtaa wuxuu ka soo jeedaa deegaanka hirshabeelle way iska garan kartaan degmada ceel cali waxaa jira nin la yidhaahdo cabdiraxmaan warsame qaarey oo ku magac dheer mahadkaratay dadku way ka cabsanayaan haddaad xogtiisa haystaan ka mada cabsateen oo ilaahaygu og ninkaas wuxuu ka soo jeedaa galmudug degmada gurceel isku mid waaye dhuusamareeb iyo gurceel waxaa jira in la yidhaahdo xuseen daynile xuseen cali fidow waa cabdiraxmaan warsame qaarey mahadkartay ninkaasu waa ninka maktabka ay ugu yeeraan arrimaha gudaha haystaa waa wasiirka arrimaha gudaha fiqiya isku taytal yihiin ninkaasaa wuxuu ku leeyahay waxaan ahay wasiirka arrimaha gudaha xaggee wasiirka arrimaha gudaha joogaa waa been iyo baadil waxaan qabaa marka waxaan ku soo celinaa marka xuseen cali fidow xuseen daynile wuxuu ka soo jeedaa asina galmudug waxaa jira nin la yidhahdo asigana waa iska wada taqaanaan cali dheere waxaa jira nin la yidhahdo asigana yaasir jiis ninka qaraxyada iyo weerarada iyo amniyaadka iyo qashinka iyo qurunka iyo waxaas ka shaqeeya asiguna wuxuu ka soo jeedaa galmudug waxyaabaha aan u sheega marka waxaa waaye dadkaas deegaanadoodu maxay yihiin horta maanta maxay yihiin waa kuwa u liita soo ma iyaguna waa kuwa u liita kooxaha argixisada horta kooxaha argixisada inay u liitaan waxa ku tusaya waxaa waayo fikirka argagixisada iyo dhibaatooyinka deegaanadooda iyo dadkooda ku dhacayo waxaan isleeyahay marka dadka noocaasuhu haddaan owlaaddooda laga shisa doonin iyagoo shisi dambe ma leh war dambey leeyihiin iyo wacaal dambe ma jiryo nimanaa marka 5 sano lagu biirin oo aan derbi la taagnayn oo waxa ay sheegayaan ay been yihiin oo maafiya ah tuuga ah oo dadkii fikirkan aas-aasay waad og tihiin waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar robow maanta muxuu yahay waa wasiirka diinta waqaafta soo ma wuxuu uga baxa marka yaa xog ka hayo waxay isku khilaafeen kooxaha argixisada waxay isku khilaafeen waxay ahaaday qaraxyada iyo dilalka iyo qaabka loo fulinayo howlgalladooda hadda nin iyo kuu yimaado kule niyahow aan wax isku darsanno horta marka hore dadkaaga deegaanada soo lecdaan hal xab haysa keerin dadkuna sidaas ku leemaayo dadka ilaahay lay karaa
bini aadam waxba ma dili kariyo waxna ma lii kariyo anigu waxaan qabaa marka kusoo gabagabeynaya in fursaddan hadda kacdoonka laga faa'iidaysto dadka doqonta oo wax magaratada oo nuucaasa in horta qofkaa ka baqayso waa inay xogtiisa taqaano qof aadan aqoonisay uga cabsataa horta waxaan rabaa marka inaan nimankan fursadda hadda taagan in laga faa'iidaysto dadka shacabka ah iyo ciidamada qalabka sida ee dhibaato kasta ee dalkan ka dhacda iyadoo ay soo gaartay maanta iyagaa isku qasban waan isla socdaan howlgalku siduu uga bilowday ama hadda uga socdo gobolka hiiraan ayaan rabnaa inuu uga hirgalo guud ahaan gobollada dalkoo dhan shaqadaasna waxay u taallaa dadka soomaaliyeed oo dhan dowlad kaliya uma taallo baarlamaankana deegaan kasta iyo gobol kasta iyo state kasta dadka ka yimide waxaa laga rabaa inay dadkooda iyo deegaanadooda ay abaabulaan una sheegaan dhabta iyo xaqiiqda dadku inay iyaguna cabsadaan sax maaha in lala cabsadana sax maaha in loo cabsadana sax maaha waxaan jirin in dadka laga dhaadhicina sax maaha anigu waxaan qabaa ka baarlamaan ahaanna baarlamaanka waxaa soo galay dad micnale oo meel kasta hawaato sheeg dowladda hadday tahay hay-adaha kala duwan hadday tahay ciidamada ka kala yimideen meeshaan u soconna waxaa waaye inaan keenno shuruuc lagula dagaalamo kooxaha argixisada ah oo lagu bannaysan kara dhiiggooda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته